walaalo waxa jira wax la raaca caalamka criticism oo qofkii constructive yani si ma garanaysaan in la dhaliilo wax oo laakiin wax laga bedel rabo maaha in la soo fadhiista meel dee aabaha waxaa ku sameeya iska kacayo waxaas maaha debate magalada iyo maaha critic waxa weyn ka hadlayaa inta laga dhal imika badanka waxaan ka arkaa asma waxay ka falcelisaa wax dhacay inaan yaroo la kufsaday wax sameeyey okay ka falcelintii oo lagu bees gareynaya dhaqankeenii ma fahamtay ma aha inay la oranayo wallahi waan iska caayaya ragga Soomaalida oo dhan baa caynkaasa marka taa laga falceliyo su'aashan idin hayanimada Soomaalida waxa weeyaan gabigiinu ma kufsadayaal baa tihiin gabigiinu ma waxa tihiin kuwa waxadaya gabigiinu ma inta xun baa tihiin way walaalbu idin dhiba waxa la critic gareynaya because hadda marka laga hadlayo critic inay yar baa la kufsaday ama inay yar waa bihid nin weyn oo konton jir iyo state jir siiyay dawal caalam islaami caalam carabi iyo caalamka oo dhan dawa wax khalad ka ah way ragga Soomaalidu aanay u lahayn kartida ama se kalsoonida inay dhadaan oh that's wrong anaga taasina kama suurtooday ninkaas uu qaldanaa maxaad wala daciif u tihiin mid kastaba u istaaga xagga victimka iyo ka kufsadaha ama ka waxaad qaranaysan in aanu qof haagsan iba idin ku jirin because anu ma qabo taas horta ana ka jawaabay jawaab ma inaan kan weydiiyay xarada yare kaadi macaan I love you yare sug because nin baa rabaa inuu iga jawaabo sheekadan walaalo why bad u istaagaysan aniga imika ajnabi ma qabo I wish ima qabo in Soomaaliya baa qaba nimanka ajnabiga leedahay anu why waan oranaya I wishna waxa weeyaan walaalo inan baa nin guursanaysa ajnabiya calafkeedii bi ilaahay ka dhigay nuuligaynaak Soomaaliyeed inta meel soo fadhiisatay ama islaan ama oday ama islaan ama inan yar oo inamada Soomaalida ku faanaya naagaha cade caayaya maan arkin imisa inan baa jooga Mareykan baan joogayo dhalinyarada oo naaga cad bay qabaan kaan qabina uu la nool yahay inan ka hadlayso oo birara maan arkin oo ka xaatidaysa way bad walaal inantu markay guursato waa lama xalaaleyn waa gaal waa caguuz waa kan ilaahaydankii muutumo maxay idinka galay iyada nagtan dooratay iga jawaab saddexdaas su'aalood walaalo way baad ninka naagta guursada ajnabiga u dhabtaanad u caydaan maxay idinka galay midinka wada guursan lahaa way baad xagga xun istaagtaaneed qofka intuu nin kufsado wax kufsadaha ama dhibaateeyaha aad xaqiisa u wada istaagtaaneed kalsooni darrada idin raacaysan okay su'aal way saddexdaas su'aal taagay horta walaalo maxaan ku dhahday ta dumarka waaweyn marka aan leeyahay dumar 70 jir 80 jir marka aan leeyahay yacni lixdan ka iyo 70 ka waxaan ku dhaliilayaa hadii inay yari qaldami layn oo soo koraysa oo aqligeedu aanu ku filayn oo ay aflagaada noo geysan leeyahay hadaan nahay ragga Soomaaliyeed waxaan oran lahaa ragna waxba kama taqaano ragna may soo dhalin walaaladayna dareen badan ma haysan waxyaabahaas yani qiil baan u sameyn lahaa laakiin maamo 70 jir marka inta halkaan noo soo fadhiisato oo caruurteeda caruurasiidana kuweedi kala caruurasiidana intuba ay rag dhaleen oo iyadu ay maxaan ku dhahay intii ugu badnayd dhashay yacni waxa halka iga muuqata maamadaas inaanay ma aragtay yacni wax qiil loogu sameeyo aanay meesha oo lin oo qofkaas oo kale yacni ay gaadhay heerkii maxaan ku dhahdaa aan waxba laga qaban kareynin ama maskaxdeeda xitaa aan wax laga bedeli kareynin ama xataa wanaag aan loo sheegi kareynin sababta qofku marbu xitaa albaabada wanaag xitaa qalbigiisa ka xirmayaaba oo aan wanaag gaba ka shaqeyn karin hadduu inta xumaan ku gaaro oo inta xumaan wax ku wado way adag tahay in wax laga qabtaa taalta waxaan malaynayaa ma aragtay taan ku dhaliilaya aan isu dul taagaya inay taa tahay oo aanan wax qiila u haynin واركتديدا ما تقانا ما حكمانا أنا توبك لبدينا back and forth إنهم كهذا لما أبهني أوكي هل سؤال بان ورتمد بان مسؤول وكل شيء جيا الدنيا إذا جايسين هذا قبل يرو إثيوبيا على كفصدا نبى كفصدي dadka xanuunsanaya ciyalka u hamooda horta adduunka dhan bay ku nool yihiin cadaan bay leeyihiin cajab bay leeyihiin waa soo socday waa su'aasha labaad soo socday iyo asmaay haye maanta dhamma la qodbayna marka labadiina isku celcelinay asna bal hada asmaay saddex su'aalood ma isku taagaya ka gabadha marka waa ku baryeynaa anaga la tigeen hata gaariya noo taagan maxaa isu dhinac taagtaan ragga inta waxaydaan odhanayn qof nin xun baa geysta waxaan oran maysaan raggii Soomaaliyeed
ay dusha ka saaraysaan aanay lahay waxa laga yaabaa 10% ama 15% baan naga xun qofka ibnaadan kale in xun iyo in wanaagsan buu ku dhex jirtaa maaha gabadh xun waxay geysato inaan gabadho oo dhan guudka ka saaro waa inaan idhaahdo gabadh xun baa waxa geysatay iyada xumaantaas iyo inta xumaanta ku taageersan bay ay maxaan ku dhahdaa guudka ka saarata inanta wanaagsan annaga sharaf iyo karaamay naga mudato u qaban maynadee sidaas oo tahay idinkuna ina ka wanaagsan waa inaydaan u qabanin xumaanta ninka xumi geystay ka wanaagsan guudka ka saarina yani aflagaaday noqonaysaa marka in rag oo dhan guudka iska wada saartaan in garaad badan baa ku jirta in garaadkoodu liitaa ku jirta in aragtile baa ku jirta in aragtideedu liitaa ku jirta horta ilmaada riyaal ummaddu iskuma dhex jirtay oo maxaa ku dhahday ummadda ilaahay arkaysaan yani ilaahay faraa ma simin sidaas oo kale aan ragga Soomaaliyeed u simin taana halkaas kaga baxaya taayib waxa timi maxaan ku dhahday gabadha ajnabi markay guursata maxaa u qaniintaan ama maxaan ku dhahday guudka uga fuushaan horta ilmaada riyaal ragga waxa tahay raggu markay ay guursadaan dumarka ajnabiga laba annaga hadii ay diiniyan hadii ay noqoto diiniyan imaadbi waa sukiin dultaagiya hadday diiniyan noqoto ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo rasuulkiisa waxay noo baneeyeen annagu gabadha maxaan ku dhahday aan nala diintahay inaan guursan karno hadii maxaan ku dhahday oo annagu soo jiidan sababta aan nama jiidan karaan annaga ilaahay mas'uuliyadeedu ogi marka uu noo baneeyo wuxuu rabaa yaa ka yeelay marka doonaysaan inaad guursataan in ajnabiya waxa guursataan in maxaa ku dhaay kula diina balaan idin qabsano ka kale waxay guursanayaan diinta xataa lafta xadiis kamid ah jooga ma hadlaya walaalo warning buu ii soo diray teleefankayga I don't even know what happens please shaashada ii garaaca please dadka hoosta jooga amore please shaashada ii garaaca baby wadnaha dusha sare saarana ii taabta ma fahantay like badanna saara oo like badan saara please inuu baalkaas ka kaco ku soco mas'uulku dhamayso wax yar ma anigu ma hadlaa mas'uulow waxaan jecelahay inaad meel fiican gashaan waxaan jecelahay maxaa ku dhahday hadii aad naga tagaysaan qof nooga kii wanaagsan ilaa maxaa ku dhahday jab baan nagu dhacay oo ummadda Soomaaliyeed hadaan nahay qaran jab wax leeyahay baan nagu dhacay xilligii dawladii maxaa ku dhahday kacaanku ay dalka haysatay ee dawladii Soomaaliya ka jirtay laba maxaa ku dhahday waxyaabahan dibadda loo saari jirin xoolaha dhadig baa kamid ahaa horta inaad wax fahmaa sabab baa loo ilaalinayay inaan maxaa ku dhahday xoolahan uga bixin dalka sidaas markay dhacday waxyaabaha dhibaatadii ugu badnayd ay qabsatay ee markii qarajabku nagu dhacay dhibka iyagu uu dibadda ugu soo baxay ay ummadii ceebteedii ka aragtay dumarkii Soomaaliyeed baa ka u ka waxaasna waa dhibaatada haleeshay ee maxaa ku dhahay dawladnimada naga qabsatay ayaa noo sababay okay markay sidaa tahay مسؤول horta wax yar su'aal in yar aniga wax yar ii day mas'uul baan su'aal weydiinayaa horta wayna salaamay asma iyo asxaabta kale meesha ku jirta mas'uulow Soomaali waa rag iyo dumar maanta showga maana isisa naagta ledger asma مسؤول ku soo dhamaysa 3 minute because aan isdhageysano ku soo hadalkii dhamaysa ma laga soo dhaxgalay مسؤول ku soo walaalo waad mahadsantay mar kale sababta ayaan maxaan ku dhahday waxaan leeyahay hadii anaga naga tiraasho ma hayno inaan xumaan uga sheegayno ma waxaan idin leenahay idinkoo dhaqankiini iyo akhlaaqdiini iyo waraagiini iyo inantii Soomaaliyeed sharaftii ay naga mudantiin gala meeshii aad galaysaan laakiin waa inuu noqdaa bishuruud si annaga aanay dhaliirin nooga kiimano sida aan waraaga idin la rabna idin kana maxaan ku dhahday waraag waa ina qof islaam oo islaamnimo haysto kow ay guursataan aan idin qabsano marka taadaan anigu qofkan islaamka baan wataa maxaan ku dhahday wixii aan rabo ila rabaa kanaan anigu rabaa ninka idin ku qabsaday ama idin ku caaya isaga edab daran annagu wanaag baan idin la jecelay hablahaygii Soomaaliyeed baa tiin marka maxaan ku dhahday qof aan nala diinahayn inta waliba nooga gashaan halka noo soo fadhiistaan aflagaadaysan waa la idin qabsanaya hal idin qabsan waa idinka indhiis ku soo jeediyay hadalkaana waxaan u malaynayaa taana inaad taa kaga qaracday waan idin dhageystay aad baan u mahadsantahay inta igu ixtiraamteen ku soo mahano محن والله أنا معنا من سنة هاي قفكو بني آدمكو
muxuu maxaan dhihi lahaa ilaahay siiyey inuu الله بهاش بقى كوريكتي ولا على بالسوبر شو تايم كان وعشية كوسع ريكو ما هنو كوسع نقول سوري ولا على مسوق ده دقي ريكو كوسع وما سنتين قفت له اسماء يا اصحاب كذا لكن انا هل سؤال بنقبا هل كسؤال او ما انت gabadha Soomaaliyeed hadii ay guursato nin cadaan ah ama nin madow ah gabadhaasi hadday doonto wiil qof muslim ah guursato cadaan ah ama qof madow oo cadaan qof madow oo muslim ah wuxuu doon ha ahaado maalintii shaashadaha keento ama meelaha laga arko aad baa loo caayaa waxa way ilaa aakhira loo dhacaya laakiin wiilka Soomaaliyeed maalinta uu guursado isagoo gabar Soomaaliyeed no marka uu guursado gabar cadaan ah ama ajnabi ah waxa laga yaabaa sidaynu aragnay cid daba gelaysa ma jirto cid caayisa ma jirto gabadha waxa leeyahay dumaashi iyadoo waxay doontaa ama kristaan ha ahaato ama waxay doontaa ahaato ayaa waxa leeyahay dumaashi flower baa loo dirayaa gift baa loo dirayaa marka maxay ku kala duwan yihiin wiilka Soomaaliyeed ee gabadha cadaanka ama ajnabiga guursaday iyo gabadha Soomaaliyeed oo ninka ajnabiga guursatay midna loo hoobaynaya oo waxa weeye loo kolkolinaya midna waxa weeye ilaa aakhiro loo diro aan laga harayn anu taa baan doonayaa su'aasha in la jilciyo oo wiilasha Soomaaliyeed ay jilciyaan horta anaa ku jilcinaya anigu dhaqanka Soomaaligan si wanaagsan Rico waa aqaana oo anigu hooyaday gabayaabay ahaan jirto oo gabaya badan oo Soomaaliyeed waan soo dhageystay sida Cambara iyo maaragtay Hurwan wal iyo kulli waan soo dhageystay ilaa taariikh badan oo Soomaaliyeedna waan soo akhriyay oo ma garanaysaa gabayaashii ugu waaweynaa iyo qoladii af Soomaaliga qortayna waa ka dhashay oo Xasan Gani baa kamid ahaa gaariya kamid ahaa adeeraday oo af Soomaaliga qoladii wax ku soo beerisay baa adeeray ahaa aad u sii dhawaabahay u sii dhawba aabahay laftirkiisu gabayaa weynaaday buu ahaa oo SNM ka qoray gabaya badan marka dhaqanka Soomaaliga iyo ma garanaysaa suugaanta Soomaalida iyo meesha inuu isirkii ka soo farcanay iyo sababta dhibaatadan u timid xataa ugu waanogahay taas oo ay kamid tahay xalidada taas ay kamid tahay horta sidoo inoo sheegay hadda kale xoolaha dhadiga ah lama dhoofin karin markuu ku dhihi jiray waruntii hablaha dhadiga ah xataa lama dhoofin jirin Soomaalidu dadka kale waxay leeyihiin fortune kale yiraahdo sida dhulka oo kale inay rag territorial noqdaan dhulka isku laayaan inaga Soomaalian ahaan laakiin dumarkeenu hawlaha inuu leenahay kamid tahay alaabta uu ninka Soomaaligu leeyahay dumarka kamid ah waa alaabta uu leeyahay xoolihiisa ay kamid tahay rida iyo waxaas kamid tahay marka laba reer isku dhacaan oo kale dumarka la isku doonsiin jiray oo la issiinaya oo ma garanaysaa la isku gudbinaya oo la oranayaa warniyo naga raali noqdo afar dumar aynu kala guursanayna afar dumar aan soo siiyo waa sidii xoolo la kala gudubsado kale marka ay raggu ma aragtay reer kala dilaana oo ka dhigaana dumarka la soo kala qaataa oo waxa uu ahaa wax dhaqan oo soo jiray marka wiilka Soomaaliga 16 jirka ee qurbaha ku koray wuxuu dareemayaa wiil cadaan ah anigoo la socdo markuu arko inuu aniga ileeyahay xulay waa gabadha aan anigu leeyahay gabadhaydii weeye gabadhaas anaa le buu leeyahay waa aniga xoolahayga la qaatuu la taagan yahay mana fahansiin kartid war waxaan anigu xoolo aad leedahay ma ihiyo qof bile aadan oo jirta baan ahoo joogta hadaad ku tiraado ma ibu ku leeyahay xoolahaygi bay uu ninkaas qaatay haduu wiil Soomaaliya qabo ilaan 40 milyan oo Soomaali aniga ima guursateen mid bay iga guursan lahaay still wuxuu arka xoolo aan leeyahay inuu yahay oo uu leeyahay xoolaha iyagu yaanay banaanka u bixin Ingiriiskii gumaystay markay noo yimaadeen stop it babes can you be quiet a little bit gumaystay markay noo yimaadeen waxa kaliya taa uu yeeshay markii xeerka geeska soo wada fariisteen muu oran war dhulkayga ha qaadan war don't colonize me war biyaha ha iga qaadan war diamondkayga macdantayda ha qaadan war dhulkayga uma baahan inaad qaadato muu oran dumarkayga ha guursan buuri waa awowga iyo awooyaasheen markay soo wada fariisteen ee gumaystay noo yimaadeen wuxuu yiri okay dhulka waad xukumi kartaa waa qaadan kartaa laakiin walaalo macaano dumarka naga guursanin hanaga guursan dumarkayga heerkaasay ka taagantahay marka dumarnimadu ay ka taagantahay sababta daraadid bay u diidan yihiin waran dareemi karaa laakiin qaar kood ba unconsciously culture-kii markuu in badan jiray sababta ay u react garaynayaan ama ay u caroonayaan iyagoo garanayeen bay iska react garaynayaan laakiin hadii ogyihiin bay isku halku lafta ku hayo inay tahay xoolo ay leeyihiin inaanu nahay annaguna aan iska fujanayno way fahmi lahaayeen marka xoolaha dhadigana lama sameey jir lama diri jirin dumarkana lama dhoofin jirin xataa dumarka looma ogolaan jirin inay qurbaha tagaan ka waran